السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وين سلامي. waxaan rajeynayaa waqti wanaagsan mar walba joogtaan sidaan idinkaga balan qaaday inaan isbuuci hal video idin soo galiyo oo isdhahay mar walba maxay ahaato wax macquul ah ama wax laga qabsan karo ama laga faa'iidi karo aan idinka balan qaadina idin wadaago maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago mid hal eray aan rabaa inaan wax yar ka hadlo oo kooban insha Allah oo ku saabsan sida fiican ee wanaagsan ee lagu gudbin karo fariinta jacaylka ilmaha si ay u sii wataan jiritaankooda iyo horumarkooda marka u horeyso waxaa muhiim ah in ma aragtay aan fahansanahay ama dareensanahay anaka waxaad jacayl yahay oo kale tusaale ahaan haddii ilmaha kusoo koraan dad is-ixtiraameyn hadday arkaan waalidkooda ama dad kale ay la nool yihiin oo is-ixtiraameynin oo iska daba hadlaayo isku qaylinaayo ilmaha hortooda isku dilaayo ama isku dagaalayo dad oo maaragtay tusinaynin raxmad iyo jacayl mararka qaar badana waxay u badan tahay qof walba uu jecel yahay ilmihiisa balse waxaa laga yaabaa inaad ilowdid ama maaragtay aad wax weyn kasoo qaadin inaad dhahdid oo hooyo ama aabba waan ku jecelahay waxa ugu muhiimsan ay tahay fariinta jacaylka marka ilmahaaga si fiican u arkaan waa laba si waxna way arkayaan oo aday ka arkayaan waxna way maqlayaan oo aday ka maqlayaan waxna adaa dhehaysid so tusaale ahaan haddii ma aragtay ay fahansaneen markay arkaan waxyaabaha ku dhaqmaysid ama dhehaysid ama ay maqlayaan waxay ka qaadanayaan tusaale waxay u badan yihiin sidaas oo kale inay kan u dhaqmaan hadday arkaan dagaal iyo qayle iyo buuq waxaas mar walba ay ku dhex jiraan ilmaha ayakan waxay moodayaan waxaas inay caadi tahay inuu jacaylka dhabka yahay bas intaas inay tahay so waxay kaloo ka baranayaan hadday arkaan tusaale ahaan family kala dambeeyo wada hadlo is-ixtiraamo isdhaho mar walba oo waa ku wixiisa waa ku jecelahay hab isa siiyo isdhunkado dan markaas waxay dareemayaan in ay muhiim tahay in ma aragtay dareenkooda si degan u sheegan karaan ay usoo gudbisan karaan fariinta ay qabaan waxay dhisaysaa ra'yigooda ra'yi wanaagsan iyo ra'yi fiican waxay ka qaadanayaan nolosha ay waqtigaas ku nool yihiin waxay noqonayaan ilmo faraxsan oo u dhisan yahay dhismaha ugu muhiimsan ee nolosha waxay noqon karaan ilmaha markay fariinta jacaylka si fiican u gudbisid ee fahmaan waxay noqon karaan ilmo ma aragtay naftooda inay wax taraan haddana ummadii wax taro oo wax kusoo kordhiyo dunida oo kaleeto waxay noqon karaan marka adiga waxa muhiim ah adiga sida influence ugu sameynaysid sida adiga uga dhaadhicinaysid ama aad tusaalahaaga u qaadanayaan oo mar walba marka xanaaqsan tahay oo kaleeto inaad ilmaha hadday ku ag joogaan isku daydid intaas control kartid controlshid so tusaale ahaan haddii ama qof kale kaasoo xanaajiya ama qofka aad nolosha la wadaagtid aad isku xanaaqsan tihiin oo kaleeto ilmana meesha joogaan waxaa muhiim ah inaad isqabatid ama iscelisid sababtoo ah ilmaha waxay kaa qaadanayaan ra'yi qaldan ra'yigaas qaldan hadhowdii waxay ku dhisanayaan ra'yi waxay u malaynayaan ra'yigaas inuu yahay wax sax oo jiro sidaas inay tahay sida saxda ee loo dhaqmo ama loo hadlo marka taas anakoo dhan ma rabna samaha qaybteena xun inay ilmaha naga qaataan waxaana qaybteena fiican inay qaataan inay noqdaan dad anaga naga sii fiican samaha waxaa kaloo aad muhiim u ah in ma aragtay markay dadka kala tagaan oo kaleeto in maxay ahayd oo tusaale ahaan abayaasha haddaa kala tagtiin xaaskaaga iyo caruurna kuu hayso waxa muhiim ah in ma aragtay aad si kastoo u necab tahay xaaskaas ama dhibaato weyn xataa idin dhex martay ilmaha mar walba adaa aabuu ah adduunka meesha rabta ka tag so marka ilmaha waxay kaa qaadanayaan ra'yi qaldan haddii adigaada la soo xiriirin dhowr maalmood dhowr bilood dhowr sano waxay isdhahayaan aabaha kuma jeclo oo kale ama kuma rabo ama caruur kalu samaystay dan kaama lahan marka cuqdad iyo xumaan iyo waxaa ku abuurmaya waxyaabo badan so ilmaha badanaa ani iskoolka u dhigo oo la soo shaqeeyay markay waalidkood kala tagaan waxyaabaha ugu dhibka badan leh ee noloshooda
noloshooda la soo wadaagay ka mid tahay, especially hadduu haysan waalid mar walba la soo xiriiro oo ka warhayo oo dhaho xataa aaba I love you waa ku xiisay ama waxaas oo kale. fariina u reebi kartaa haddii xataa ilmahaaga yaryar yihiin ee taleefon qaas ah kala xiriirta ay jirin oo kale, maybe coda u reebi kartaa taleefonka hooyadood oo kaleeto si u maqlaan. markaasna waxay ogaanayaan nometa meesha adduunka joogtid inaad xasuusanaysid, inaad maaragtay jeceshahay, inaad u xiistay. waa ogahay inaad mashquuli kartid ama shaqo iyo waxaysatid, laakiin taas sababta ma ahan inaad sabab aad ilmaha kula soo xiriirin. so waayo ilmaha waxaa ku dhacaya dhaawac iyo dhibaato weyn ee noloshooda kasoo kabsan karin. dhaawaca iyo dhibaatada ugu weyn badanaa waxay ka abaartaa xagga waxbarashada way ugu daran tahay. marka waxay isdhahayaan wax ku jecel ma lahan, wax ku rabo ma lahan, so waxbarashadooda dib u dhaca ku dhacayso. markay waxbarashada dib u dhac ku imaadana waa la ogyahay dhibaato kale hadhow ilmaha la kulmi karta samaha markay noqdaan teenager oo kale inay ama shaqo raadsadaan ama waxbarasho meel fiican oo sare ay sii aadaan. waxyaabahaas waxay ka bilaawdaan wax ka dhasho xagga dareenka emotionka ah, waana waxyaabo yaryar oo laga hortagi karo. waa ka xumahay in maxay ahayd haddii ay dhacdo oo kale in aabaha iyo hooyada isla nooleen ama kala tagaan ama laba meel oo kale fog ku kala nool yihiin. waa muhiim fariinta jacaylka inaad si sax ah oo fudud ugu soo gudbin kartid, ama qoraal ha noqdo hadday ilmaha wax akhrin karin oo yaryar yihiin oo kale cod ah usoo reebi kartid. waa ka xumahay hooyooyinka qaar markay kala tagaan qofkii nolosha wadaagi jiray isfahmi waayaan ee u diido ilmaha inay maxay ahayto aabahood la xiriiraan oo kaleeto. waa nasiib daro inaad saas samaysid, sababtoo ah si kastoo kala tagtaan ilmahan aabahood oo aabahood mar walbaba. balse ogow inaad xaq aad ka galaysid, waayo waxay xaq u baahan yihiin oo ka mid ah koritaankooda aad ka xiroosaa. macnaheeda ma ahan adiga qofka haddaa isnacdeen ama isku xumaateen inay ilmaha kala go'i karaan. weligood ma kala go-ayaan ilaaha aaba uga dhigay, laakiin adiga haddaa isfahmi weyseen ama wixii idinka dhexeeya meesha ka dhamaadeen, fadlan waxaa kaa codsanayaa ilmahaas sidaa maxay ahayto. waa ogahay mararka qaar inoo dad badan oo maxay ahayto aqaana ee dadkooda kala tageen ama isku xumaadeen, mararka qaar way adag tahay inaad qofkaan lasii xiriirtid, balse ilmahaaga madaxooda isku day in aad maxay ahayto mararka qaar la hadashaysid aabahood si ay u dareemaan ilmaha inay maxay ahayto qof aaba ah oo jecel oo xiriirinaya haysto. mararka qaar xataa adi inaa hadduu aabo fiican iyo aabo fiican ahayn oo soo xiriirinaynin, mararka qaar adi xataa isku day inaa u wacdid oo adiba la hadlin nadaarta ilmahaaga u dhiibtid. taas waxay ka caawinaysaa ilmaha xagga social skillska, xagga dareenka, xagga fakarka, xagga isku filnaashaha. sababtoo ah markay haystaan maxay ahayto markay ogyihiin laba waalid oo ixtiraamaya oo jecel inay maxay ahayto haystaan, waxay waxbarashada kusii dadaalayaan, farxadooda ka qayb qaadanaysaa, qof firfircoon oo bulshada wax ka qabtuu noqonayaa. balse haddii taas helin ama qofkii xaqa u lahaa qofka oo ilaalinaya ka hor istaago, nasiib daro wixii ilmaha waqtiga u baahnaa wax walba waqtiga ku socdaan, waqtigii u baahnaa inaad ka hor istaagto waxaa laga yaabaa hadhowdi dhibaato iyo dhaawac ka weyn inuu imaado. walaahi hooyo aad ula yaabaa jirto, maasha allah, she is so great. hooyo aad iyo aad u fiican waaye. waxaa jira hooyadan inay caruurtooda aabahood ay kala tageen, kabacdina aad iskugu xumaadeen, balse ilmaheeda madaxooda mararka qaar ilmaha markay weydiiyaan dhahan aaba aawe, waxay ku dhahdaa aabo wadanka lagu shaqo u aaday. aabahaasna wuxuu ahaa aaba aan fiicneen oo ilmaha soo xiriirinin, iska badaa inuu wax usoo diro xagga maalgelinta oo kale. qarash badanaa ilmaha ku baxaysa ogtihiin, waxbarashadooda, dharkooda, cuntadooda, wax walbo. iska badaa taas inuu garab ka siiyo xiriirka xataa waalidnimo oo say tihiin xataa wuu ka goostay. balse nasiib wanaag hooyadaas waxay ahayd hooyo dhaaftay sida ilmaheeda dareenkooda iyo fakarkooda u ilaaliso. waxay samayn jirtay inay wacdo meelaha hadda jirin halow markuu dhaho ilmaheeda u dhiibi jirtay, ilmahan waxay ku dhihi jirtay
maxay hata asagana waxay ii sheegtay inay message u qori jirtay dhihi jirtay ku dheh ilmaha inaa wadan kale kasoo shaqeynaysid because intaas waxay sameynaysaa walahi hooyo cajiib ay noqotay waa ka codsaday inaan share gareeyo maxay tahay idinla wadaago maxay ahayd hab dhaqankeeda waayo waxaa laga yaabaa dad naga mid ah inay ka tusaale qaataan maasha allah hooyadaas aada ugu duceeya kheyr ilaaha siiyo marka adinkoo aad iyo aada u mahadsan ogow inay muhiim tahay fariinta jacaylka inay ilmahaaga gaarto isku duuduub marka hadalkii summary ku sameeyo waxay kaa arkayaan waxa ku dhaqmaysid waxa ku hadlaysid iyo maxay ahayd haddii labada waalid kala fogaadaan oo kaleeto in xiriirka meesha ku jabin uu ku baabi'in ama hooyada u diidin ilmaha aabahood la soo xiriiro ama aabaha noqonin aabo xun oo ilmihiisa iska iloobo waa muhiim mar walba meel walba ilmahaaga inaad gacanta ku haysid ka warhaysid ana dhahdid hooyo ama aaba oo ku jecela waa ku xiisay asalaamu calaykum share and like mahadsanid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa kulan dambe oo xiisa leh haddii eebaha awoodda la idmo asalaamu calaykum ciao ciao asalaamu calaykum